magacayga waxaa la yidhahdaa Amine Ibrahim Xirsi waxaana shacabka reer Jubbaland waxaan u sheegayaa dawladda federaalka iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo cunaqabataynta diyaaradaha ee uu soo rogay ma gasho siyaasad waa cunaqabatayn shacab la go'doominayo sidii Falastiin oo kale loo go'doominayo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaan dhihi lahaa arrin walba oo tallaabo oo qaadaysa caqabada ay leedahay faragelinta aad samaynaysa caqabada ayada saamaynta ay keeni doonto ka fiirsan dhihi lahaa waa arrin aan loo baahnayn 28 sano anagu xuduudaha daasanayn Jubbaland markaan hadda ka hadlo xaaladeeda waa meesha kaliya Soomaaliya maamul goboleed ahaan ugu nabad jirta weeyaan qaxootiyaanu ka soo noqonay nabad baan haysanaa waxa loo baahnaa in tallaabada aad qaado u horeysa ay noqoto sida Soomaaliland ku soo celin lahayd ma ayna ahayn inaad maanta Soomaaliland oo go'doonsan aad Jubbaland go'doon ka dhigto arrinta waxaan oran lahaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka fiirso Jubbaland oo aan mari ahayn iyo madaxweynaha geesiga halyeeyga Maxamed Islaam halyeeyga Maxamed Islaam ee Jubbaland ku soo galay qori afkii qalina u bedelay waxaan oran lahaa waa lugtaadi midiga hagooynin qaar hor iyo qaar dambe Soomaali ma kala goodo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaan weydiinayaa ilmaha waxaan arki jiray markii cunto meel loogu rido isagoo saxankii hor yaala in gacanta ku qaata madaxweynaha tahay madaxweyne Jubbaland baad u baahan tahay waa arrin isweydiin u baahan arrinta ayada ah waa ka fiirsasho la'aan adoo kursi haysta inaad kursiga Jubbaland u afgambido arrin siyaasadeed oo aad maanta 91 nagu soo celiso Maxamed Cabdullaahi Farmaajo arrinta ka fiirsan oran lahaa عبد ناصر عبد الله أنا أرضي Soomaaliyeed ee Jubbaland dowladda federaalka waxa uu sheegay in faragelinta baasan ee nugu in naga dul qaado markii madaxweynaha Farmaajo la dooray anaga waa ku qanacsaneen markii madaxweynaha reer Jubbaland doortay inuu anaga faragelin diyaaradii inoo soo adeegsado shacabka inuu isku dirdiro xaq ma 6 bilood ku dhimana si wanaag ku dhameeso anigana waa ku taageerayna أنا لقيت فرقلين تنقاون شعبك hadda inta qaadana cadaadiso oo meel walba naga cadaadiso waxa way waa shacab Soomaaliyeed waxa ku go'ahay meesha wax kale meesha yaala mare waxa meesha ku go'ay waa shacab Soomaaliyeed bari ka maalina doorashana way iman Farmaajo waana laga bixi waxaan oo dhan waxa weeyaan dawladnimadu waxa weeyaan وقالي ووح لهي أن لهي كريم ونعمة وعزي ووح إلهي بني آدم كبشر كأكون من يصي إني دولة لماذا لغو حارو وقاقش لغو حارو حار كأنكم ما أندونينو ما دونينو إني دولة لماذا لغو حارو ما دونينو Jubbaland بان لغو حارو أن أندونينين سومالي وين بان أندونينين لغو حارو لحظة بلادة كوهرني سادون وحار ضلك سادون وحار وحل معناها يعني مارت اللي سوء الغني فرماجه ومجرو هذا ضلك كوحار يسكوحار أنا كوحار مين دوني مين الدوا دوني هنا يدنته دوني مين الدوا دوني هنا يدنته دوكان كشين كدار كمالي دوني مينو لعب من ضلك سيسي دوني مينو إلهي أنك Jubbaland هراء وسيسعطه waxaynu dareemaynaa saameyn weyn ay nagu yeelan kartaa oo runtii keeni karta inuu kharashka bato oo caqabada ugu weyn ay tahay dadka dhibayso oo ugu badan oo dadka ay ka sheegtaan
qarashkaas oo olka hore lagu raaci jiray qiimo ka yar qiimaha hadda dadka aan ku dallici doonno hadduu ilaahay yiraahdo oo u sheegnayba sidoo kale waxay noqonaysaa xagga waqtiga timeka laftigeeda diyaaradda ay ku socon jirtay caqabad waaye oo ka duwan tii hore waayo olka hore toos markay duulimaad u samayso diyaaradda ka baxaysa Kismaayo ee Nairobi aadi jirtay ama Kismaayo markay ka baxda Dhobley aadi jirtay waxay ahayd time la yaqaano go'an halka olkooda ku aadi jirtay Muqdisho Kismaayo iyo Dhobley 25 daqiiqo haddii dawladda amarkeeda la raaco ah in dib loo noqdo Muqdisho la geeyo waxay noqonaysaa waqti ka dheer taas haddana sidaas oo kale ay tahay waxaa soo kori doona qarashkii dadkii inuu ku koro oo culeys ku noqonaysa dadkii oo idil dhammaan bulshadana taas hadee wax ay ka bixi karaan ma ahan guud ahaan sidaa dareemaysaanba falaadiyadii caadi bay u fadhiyaan Dhobley oo kale hadda waxay baxdaa wiigii 6 mar ayay baxdaa Nairobina waxay baxdaa wiigii 3 maalmood ayay baxaan bulsho aad iyo aad u badan ayaa ku xiran oo macaamiil ah oo markaas saameyn badan ayay ku yeelan doontaa labada dhinacba markii la soo baxay markii la noqon doono xagga timeka iyo xagga qarashka aad u badan doona hadduu ilaahay yiraahdo taasna waxay dib u keenaysaa ninkii ahaa macaamilka ahaa noo ahaa oo tigidhka gadanayay waayo markii la yiraahdo qiimihii hore qiimintaas ka badan times 2 inay noqoto macquul ama ay ku dhawaato marka waxay noqonaysaa dadkii inay ku soo noqoto caqabad aad iyo aad u weyn hadda saasay tahayna waan dareemi karnaa laftigeena anaga ka ganacsi ahaan waa ka dareemayna dhaqdhaqaaqii marka waxaan jeclaan lahayn dhammaan labada dawladda dhexe oo amarka soo saartay iyo maamulka Jubbaland oo hogaaminaya madaxweyne Axmed in uu xaliyaan wada hadal lagu dhameeyo siyaasadda iyo la kala saaro ganacsiga oo arintaasi lagu dhameeyo wada hadal iyo isfahan hadduu ilaahay yiraahdo waxaan ka rajaynaynaa in isfahmi doonaan insha Allah al-Kariim